عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaa ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyadeena waa barnaamijkii habeenimo khamiis oo jimca soo galayso taariikhduna ay tahay 19 bisha June sanadka 2025 hadaba barnaamijkeena caawa sida caadada ahayd waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabihii soo kordhay tan iyo intii aynu kala maqnayn barnaamijkeennii galabta iyo wixii ka dambeeyay haddaba qodobada barnaamijkan idinku haya waxaa ka mid ah warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa caalamka oo dhan waxaa qabsaday saacadihii la soo dhaafay gantaalkii saakay ay isticmaashay Iran haddana mid kala taariikh kala dhigay gantaalada waa wareeriyeen Israa'iil ilaa hadda khubarada Mareykanka iyo kuwa Israa'iiliyiinta ayaa firirkiisa gurbinay haddaba sababta gantaalkan loo daba socdo waan idin faahfaahin doonaa waxaa soo kale barnaamijkan idinku haya qoraaga iyo suxufiga weyn ee yiraahdo Cabdulbaari Cadwaan ayaa ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan arinta Iran wuxuu sheegay xog uu helay in ay muujinayso hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullahi in awoodihiisa uu wareejiyay intooda badan haddaba sababtu maxay tahay yuuse ku wareejiyay tafaasiil iyo waxa uu ka yiri suxufiga ayaynu idin falanqayn doonaa waxa soo kale barnaamijkan idinku haynaa Israa'iil oo tiri Trump goordhow ayuu amarka bixin doonaa maalmaha soo socda iyo aqalka cad ee Mareykanka oo goordhow isaguna war soo saaray Trump dib u gurasho bilaabay dagaalkii ma ka baqay sidee wuxuu jiraan tafaasiil wararkii ugu dambeeyay arrimahaas iyo qodobo kale ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena waa barnaamijkeennii habeenimo khamiis oo jimca ay soo galayso qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa wararku sidaas isaga soo dabadhacayaan anuguna waxa ugu muhiimsan wararkaas ayaynu idinla socodsiinaynaa haddaba qodobka ugu horeeyo waa midka haysta xilligan warbaahinta adduunka oo dhan waa midka khubarada Mareykanka iyo Israa'iil iyo kuwa kale oo aan la sheegin ay isugu tageen oo ay waxay gurbinayaan gantaalihii maanta lagu garaacay Tel Aviv iyo Haifa ayay gurbinayaan maxaa dhacay marka waxaa loogu wardambeysay sijiil oo khasaare geystay saaka midkan la tuuray oo ilaa hadda laga sheekaynaya maxay annaga bay dhawaalayaan uu yiri mid war Iraaniyiintu ma annagay dhawaalayaan mar walba gantaal cusub oo shaqo cusub la imaanaya wax la yaab la soo baa Israa'iil waa yaabad afkiya taagan Israa'iil waa kala tagay haddaba marka gantaalkan muxuu yahay haddaba gantaalkan waxaa la sheegayaa hal gantaal oo dhowr gantaal isku ah waay weligeen maaragtay alaab waxaa la keenay burus camal ah gantaal burus camal ah la keenay saaka midka ka hadlay maxaa midka bakteeriyada oo kale madaxa weyn leh oo maaragtay saynta leh Soomaaliya hadda mid burus camal ah la keenay asaga dhan oo weyn marka waxay ku leeyihiin gantaalkan waa la yaabnay markuu soo dhawaado 10 gantaal uu noqonayo kee raacay marka gantaalaha ka hortaga ayaa isku dayay inuu qabto Soomaa markuu ku soo dhawaado 10 uu noqday midkii qolofkii bas u haray marka midkan qolofkii uu la degay uu gooyay 10kii waa xarood qaar waa 6 qaar waa 10 qaar waa 5 uu noqonaa war waxan yaa arkay kanoo kale waxaa yiraahdaa gantaal madaxyo dhowr wata marka hadda waxay yiraahdeen waxaan gantaal waa ka weyn yahay waxaan u malaynaynaa qanaabil cumquudiya waxa af Carbeedka lagu yiraahdo maana bambooyinka la soo firdhiyo hawada inta la tago mamnuuca ka ah dagaalka oo wagaca la soo siinayo kuwa ay gaza ku baabi'isay waay kuwaasoo kala u malaynaynaa kula soo ugu malaynay waaba gantaal socdee asagiya toban badax noqday marka farsamada baalka sida loo sameeyay aan ogaanaynaa ileen Mareykan
waxaan wax caadi ma haddaba marka aan idin tuso telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay israa'iil waxay baaritaan ku haysaa awoodda saaruuqii iiraan ee garaacay haddaba ciidanka israa'iiliyiintu waxay leeyihiin iiraan waxay adeegsatay saaruuq madaxyo kala duwan wata oo dagaal kaasoo noqon doona waxa ugu adag ee israa'iil difaacaadkeeda ama gantaalaheeda difaaca ay la dagaalamayaan sheeko cusub aan noo bilaabatay leeyihiin gantaalaha mahalay la dagaalayaan mise 10 haddaba idaacadda ciidanka israa'iiliyiinta waxay leeyihiin laba dhinac oo warar laga helay waxay sheegayaan saaruuqa iiraan ee markaa beegsaday deegaanka la yiraahdo Gosh Dan waxaa la sheegay inuu ahaa saaruuq watay madaxyo yaryar oo dhowr ah ayuu watay nimankii waxba arkay nimankii waa la yaabay Netanyahu iyo kooxdiisu baashu say u maleynayaan dhanka kale isu rogtay caawa kuweedii waa dhiman yihiin hadda waxa waaye diyaargarowgiyaa socda kuwa cusub ay iman doona caawa marka waxa beesha ka socda wax caadiya maaha xarisul thawriga ama ciidamada ilaalada kacaanka weli iyagu maysan ka hadlin gantaalkan iyo wuxuu yahay laakiin iyaga yaa wareeray Amerikaanka yaa wareersan idaacadahoodii dhanaa qaylinaya hal gantaal oo dhowr madax wata weligeena ma arkin sheekadaas sheeko aan caadi ahay waa iyadana hawshaas waxay ka soo kordha waa la socon doonaa waxaa jira nin suxufi oo aad arrimahan uga hadla waxaa la yiraahdaa Cabdilbaari Cadwaana la yiraahdaa waa suxufi Falastiini ah laakiin Ingiriis ah oo Ingiriiska degan oo majalada dhowr ah wax ku qora tafaftirana ka ah jirada la yiraahdo Ra'yul Yawm marka waxyaabo badan oo soo ururiyay ayaa dhowr qodob ka soo qaadanayna ninkan wuxuu leeyahay aas-aaska weerarka Israa'iil ay ku qaaday Iiraan 3 qodob ugu muhiimsan kow in la dilo madaxda uu ugu horeeyay Ayatollah marka Ayatollah waa fakaday nimanka kale dileen nimanka kale macna ma sameynayaan marka Ayatollah digi lahayn waxba u hirgeli lahaa Ayatollah inuu horu ka magacaabay nimankii kale taa marka waa fashil number 2 meeshii ay waa duminaynaa yiraahdeen waxay dumiyeen lama arko wayba gaari waayeen bam kasta waa ku tuureen meel aan caadi ahayn nuclearki waa loo dhawaan laayahay Mareykan ha yimaadee ka mareen labo soma midda saddexaad nidaamka hadda jira oo dhan inuu isku dhexyaaco burburo ay rabtay markii Ayatollah la dilo wax badan dhacaan wixii waa dhici waayeen Mareykankii ay rabtay dagaalku inuu soo galana waa kan dib u gurasho ku jira xaalku markuu waa ku xumaaday wuxuu isticmaalay ereyga in qalaba sixru ala saaxir maay ayuu isticmaalay sixirkii oo saaxirkii ku gadoomay ninkii wax sixirayay ayaa sixirkiisii ku gadoomay marka wuxuu yiri Netanyahu saasuu noqday asagii hadda bahasho ku xumaatay saqafkii laga qaaday gurigiisa markaas meel walba nagta lagu hayaa sheekaas waa la marka socota ninka marka warbixinadaas ayuu ka hadlay wuxuu sidoo kale ka hadlay xog muhiim ah uu yiri aan ka helnay Iiraan waxay sheegaysaa Ayatollahiga salaaxiyaadkiisa macnaha awoodihii isaga looga baahnaa inuu saxiixo uu amar ka bixiyo dhan uu ka tagay intooda badan uu iska daayay maadaama isagu nin yahay dagaal lagu jiro meel uu ku dhuumanayo god hoosi ku jiro awoodii wadanka dhan uu dhiibay oo asaga iska lahaa yuu ku wareejiyay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan lagu wareejiyay salaaxiyaadkii oo dhan ninkaas la siiyay waana nin ciil qaba Xuseen Salaami taliyihii laga dilay saaxiibkiis lillaahi waa markii loo dhiibayaba waa uu argudaa ninkii dhahay waa marka ninkii loo dhiibay waxa la waatana u shaadi ka aarsan waka ninka wajaanta wada habeenna sijiil habeen fataax alaabta soo ridaay waa nin awood dhan la si wuxuu habeen 5 xabuu ridaa habeen 15 habeen 20 habeen 30 uu saga baashaa habeen walba magaasiinkaas ka soo bixiya qaar kaasuu leey marka waxa la yiri salaaxiyaadka awoodihii uu lahaa Ayatollahigana waa iska wareejiye hatta Ayatollahiga hadii uu dhinto hatta
waddanka ayatullaahi kale waa joogaa ilaa saddexdii ku xigtay waa diyaarsan yihiin aan ugu leeyahay marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa weli waxaynu ku jirnaa wararkii ugu dambeeyey gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa isaguna hadlay haddaba gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa wuxuu sheegay waxaynu awoodi karnaa inaynu weerarno meel kasta oo ka mid ah Israa'iil maraykan ha soo taageero ha difaaca ma yuusan difaacin hadda aan idila hadlayo wuxuu yidhi meel walba oo ka mid ah Israa'iil waa weerari karnaa odagiya raadsanayna bas maanta meeluu joogay berito godow galaya godadkaas odagiya saa kor laga socdaa Ben Gvir iyo Smotrich iyo hay'adahan yaa arkay warkooda leewa nin walba waa xarooraya meesha meeluu ka soo qeylina waa godka ku jira marka labada marka beegsiga madaxda Iiraan gudaha laga isticmaalay sirdoon gudaha ayaa inta laga dhex sameeyay dada drones riday waxba lagu sameeyay laakiin inta gudahooda in la dhex gala xooga adag laakiin waxay leeyihiin waa ku daba taagan meeluu ku jiro hadaa soo helno godka uu ku jira ku duminayna ilay marka sheekadaas iyaduna halkaas maraysa oo maartay wararkii soo kordhay ayay ka mid tahay waayahay wararka kale ee soo kordhay waxa ka mid ah Israa'iil waxay sugaysaa oo sugi laadahay Trump inuu ku dhawaaqo yiraahdo dagaalkii waa galday oo diyaaradihiisa dagaalku ay soo galaan laakiin way dhaqaaqi laadahay haddaba marka aan idin tuso goordhow telefishinka Sky wuxuu leeyahay mas'uul Israa'iili ah ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in Israa'iil ay filayso in go'aanka uu dagaalka ku soo galayo maraykanka uu dhici doono 2 maalmood ee soo socota Israa'iil saasay qabtaa waxaanu naga soo boobsi marka waxay leeyihiin 2 maalmood soo socota ayaa go'aanka kama dambaysta dagaalka maraykanka lagu dhawaaqa uu soo galaa hadalkaasay dhaheen moogtahay wariyaashii ayaa waxay weydiiyeen afayeenka aqalka cad oo shir jaraa'id qabatay sheekada ka warrata ma ogiyo tirani أنا وحن أوجه تري ترام لبوي كبعدي أيا أرنت إيران قوان كجارة لبوي كذب أن قوان كجارة مركب عليه هذا محيط هاي نكي ترام أها وحليه هاي وحقيق صدي دجال كان هدول لوجها لقلو سوء رجل إنه تعمل لوجا بحث إنه سجري وحيابها اللياب كلا ورباهين تهدأ يقول شقاركود محلية مجرسة waxay aaminsanayeen Israa'iil iyo Mareykan 60 mitir inuu jiro maartay nuclearka godka maartay nuclearka Iiraan uu ku jiro 60 mitir may qaar waxay leeyihiin 90 mitir 69 diyaaradda marka bamka ay haysato way gaarsiin kartaa 60 90 ku xataa way dhibaateyn kartaa laakiin wax kalaaba soo baxay waxa leeyahay waxa loo malaynayaa 500 mitir inuu jiro bam kasta hadii la keeno waxba ma ka taraya lagu leeyahay nuclearka Iiraan marka waxa loo sheegay Trump adeerow dhageyso nuclearkina hadaan gaari weyno oo inta diyaaradaheeni dagaal galino dakana galno oo meeshii garaacno nuclearkoodiina gaari weyno oo dagaalkii ugu weynaado gobolkii dhan isla gubto meelay xaal ku dambeynay aynan ogeyn maxaa sameeynaa waa midda marka la leeyahay journalka telefishinka Sky News bogiisa waxa lagu soo qoray waxa leeyahay waxa ku kala qaybsamay dadkii taageerayaasha u ahaa asaga oo soo dhisay xilli annaga waxaan ku dhisnay dagaal ma galayno dibadda iyo waxaas hadda dagaal aan ugu sii wadaa marka waxa leeyahay qaybsanaantaas dhibaatay u keentay hajabadan Chinese iyo Ruush iyo laga baqayo dhibaato kale u keentay waxyaabo badan jira xataa waxa leeyahay Chinese ku wuxuu rabaa hub inuu ku tijaabsado oo hadda Iiraan ay haysato markuu Mareykanka soo galaa rabaa in maartay hubka la soo baxo oo Chinese ku rabaa in meesha uu ku tijaabsado wixiis oo maartay sidii Pakistan iyo Hindiya wixii dhex maray oo kale oo diyaaradaha Chinese ku ay wacdaraha ku dhigeen kuwii Faransiiska in meesha alaab kale ugu jirta lagu leeyahay Chinese oo Iiraaniintu ay haystaan oo weli la soo baxo markuu Mareykan yimaado rabaan inay soo baxaan marka sheekada iyaduna halkaas marka maraysa waana marka waxyaabihii ugu dambeeyay wararkii soo kordhay
ayay ka mid tahay. qadar xayeysiisa kadib ayaan gelaynaa sheeko kale oo ku saabsan wararkan oo soo kordhay ayaan idiin sii wadi doonaa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Parklands jidka 6th Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaan duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo. kala xiriir telefoonada ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. dugsiga markasu daaru taqwa. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii habeennimo. waa habeennimo khamiisa jimca soo galayso. waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii ku jiray barnaamijkaygii subaxnimo iyo kii galabnimo weliba qodobo waaweynaa ku jiray. nuclearkii ruushka oo la soo baxay iyo waxyaabo badan. haddaadan daawan barnaamijka galabkii ah inaad daawato waa muhiim. haddaba marka qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku faaqidaynaa mas-uuliyiin maraykana waxay leeyihiin iiraan way awoodi kartaa inay xirto hormus waxaa la yidhaha maranbiyoodka. horaan idinkugu sharaxay maranbiyoodka inay xirto oo wax soo maraya shidaal iyo meesha aanay jirin. sidee ku dhici kartaa layidhi maraykan waxba kama qaban karo dhaa waa xiri karaan. waka asbaaray dhiga hebel liifa u saaran wadadan maqli jirta liifkii oo kale saaranaysaa wax soo mari kara beesha bale. midda kalena wuxuu yidhi ogaada iiraan ciidankeedii badda oo dhan dagaal ma gelinoyn. gantaaluu haystaa, kuwa maraakiibta lagula dagaaluu haystaa, waxa kan gudaha laga tuuraya haystaanuu dhahay. gantaalaha maraakiibta qaar ay ridi karaan, gantaalahan hadda la ridayo waxaasoo dhan ay haystaan. ogaaduu dhahay marka alquwaatu albaxriya al iiraaniya weli dagaal maba gelinba. ciidankii badda weli dagaal ma gelin. maraakiibtoodii iyo dooma halis badan ay weliba leeyihiin oo maraykan ka yaabiya hadda ka hor. marka wuxuu leeyahay marka nimankaa maxay u xiri waayeen iyagoon hadda loo baahan ciidan bad iyo waxba iyo isagoon loo baahan ayay hadda iska dhicinayaan. gantaalaha bes ciidamada gantaalaha qaabilsan iyo ayagaa nagta isku haya. marka gantaalihii way ku dagaalamayaan, daroniskii way ku dagaalamayaan, diyaaradihii dagaalku way ku dagaalamayaan. iiraan diyaarado dagaal kuma dagaalamayso. daroon iyo gantaal basay meel uga soo hartay nimankii qaylo afkay furteen. marka waxaa leeyahay waa xiri kartaa hormus. marka sheeko maba dhoway leeyihiin maraykan maalinkuu dagaalka soo galo ayaa ciidamada baddu dhaqaaqi doonaan. sababtoo ah maraykanku wuxuu wataa maraakiib badda joogta Soomaa oo ka soo dagaalamaysa. xuuti abadda ka cayriyay maxaa u malaynaya iiraan. marka waxyaabaha maraykanku ay dibogorashada ugu jiraan ayay ka mid tahay. haddaba wararka kale ugu dambeeya hadda soo dhacay waxaa waaye afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa isaguna wuxuu leeyahay waxaynu duqaynay meelo ka mid ah Iiraan oo aanu ku weerarnay gantaalaha maartii lagula diriro diyaaradaha oo nooga soo dhacayeen ayaan weerarnay ayuu leeyahay. halkaasaan burburinay. Iiraanna waxay leedahay iyaduna drones ayaanu soo ridnay 2 meel oo kala duwan, waqooyiga Tahraan iyo meel kale ayay leeyahay. haddaba wararkaas waxaan ku soo kordhay caawa haddii ay bilaabato jugta culus waa isla joognaa iyo gantaalada soo bixi doona. hadda lagu wareersan yahay kuwii saaki 15 ay dirtay waxaa leeyahay niman madaxyo kala duwan bursa la soo diray. sheeko wallah meesha markaa ka socota. wixii soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. barnaamijka hayloobin inaad agarayso sheeganayso fakarkaaga aragtidaana ku cabir barnaamijka oo ka dhiibo. sidoo kale haddaad nagu cusubtahay subscribe ha ka iloobin youtube-ka, facebookana follow garay. inta aan mar kale kulmayno hayloobin barnaamijyada kale inaad daawato. nabadgelyo.